السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحب يرسول هذا waxaan caawa ka nasan doonaa barnaamijyadeennii qisooyinka ahaa caawa waxaynu ka hadlaynaa barnaamij kale oo aad iyo aad u muhiima mowduuc aad iyo aad u muhiima oo in la falanqeeyo iyo laga hadlo oo mudnaan la siiyo aad iyo aad u mudan mar walbana in laga hadlo oo qofka la xasuusiyo aad iyo aad loogu baahan yahay waayo waa shay nolosheennu ugu baahan tahay si maalinla ah balse aan odhan karaba shaygaasi haddaynu ka faa'iidaysan weyno nolosheena baaba ugu dambeynaya shaygaasi waa waqtiga horta waqtigu waa mid ka mid ah hibooyinka ilaahay subxaana wa tacaala nagu manaystay ee tirabeelka ilaahay wuxuu yihi wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaad is tiraahdaa nimcooyinka ilaahay nasiiye tiriya ma tirin kartaan markaa nimcooyinka ilaahay nasiiye ee tirabeelka buu ka mid yahay waqtigu waana shay maanta bulshadeena ku dhex dayacan waliba bulshadeena islaamka muslimiinta ah macal asaf inuu aad uga xumahay oo gaaladu waqtigooda ay aad uga faa'iidaysanayaan laakiin muslimiintii iyagu mudnaa inay waqtiga ka faa'iidaystaan ay waqtigoodii maanta ku dhex dayacan yahay horta qiimaha waqtiga maqaal iyo qoraal iyo muuqaal laguma soo koobi karo balse codkayga caawa aan idiin gudbinayo bal waxaan dul istaagi doonaa dhowr qodob qiimaha waqtigu leeyahay iyo sida looga faa'iidaysan karo la isugu dayi karo bal in laga faa'iidaysto sidaan hore u sheegay waqtiga ilaahay unbaa bixin kara waa nimcooyinka qaaliga ilaahay subxaana wa tacaala lagu manaystay marka islaamnimada laga yimaado ee caafimaadka laga yimaado waa nimcada saddexaad ee ugu weyn waqtigu waa hanti haddii ay markuu dhaafto aan dib loo heli karin horaa loo yidhi waqtigu waa noloshaada isagoo laga cabirayo qiimaha uu leeyihiin waqtigu ee wax loo dhigaa una jirin waxaa kolay gaalada ku mahmaadaa time is money waqtigu waa lacag iyadoo laga cabirayo qiimaha uu leeyahay waxaa kaloo lagu mahmaahaa waqtigu waa sida seefta alwaqtu kasayf in lam taqtachu yaqtacuka waqtigu waa sida seefta oo kale haddaadan goynin isagaa ku goynayo iyadoo laga cabirayo socodkiisa iyo orodka aan joogsiga lahayn ee uu ku jiro ilaahayna subxaana wa tacaala marar fara badan wuu ku dhaartay waalcasri waalduxaa waalfajri waashamsi waalqamari waxaasoo dhan qoraxda iyo dayaxa iyo maalinta iyo subaxda iyo casarka iyo wadduxaa barqada iyo walleyl habeenka iyo waxaasoo dhan waqti bay ka turjumayaan taasi waxay ku bilaabanaysaa qiimaha waqtigu leeyahay ilan ilaahay subxaana wa tacaala shayga ku dhaartay waa shay qiimo badanadeen gabayaagii carbeed waxay ku gabiyey garaaca wadnaha qofku wuxuu fariin u dirayaa qofka laftirkiisa dakaatu lqalbi qaa'ilatun isagoo kule noloshu gideeguba daqiiqado iyo elbidhaqsiyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku yidhi nicmataani maqbuulun fiihima kathiiru min annaas alsixatu walfiraaq laba nicmo dadku way ku kadsoon yihiin oo kama faa'iidaystaan sida ay mudnaayeen ugama hagar baxaan oo ugama faa'iidaystaan labada nimco waa caafimaadka iyo firaaqada diinteenna macaani xaniifka ay aad iyo aad ay ugu nuxnuxsatay dhowrista qiimaha waqtiga oo in la ilaaliyo diinteenna islaamku way nagu borisay balse waxa maanta ayaan darro ah in bulshadeena Soomaaliyeed iyo muslimiintu dhammaantood ee maanta nooli ay dayaceen qiimaha waqtigooda badanaa inta jeer aad marto waddo aad marto oo aad aragto dhalinyaro fara badan oo fadhiya gidaarada iyo kaabadaha badana intood aragto dhalinyaro fara badan gidaara fadhiyo oo iska sheekaynayo qaar kolay fadhiyo oo qaylaya qaar turub ciyaaraya badana inta jeer dhalinyaro aragto saacado badan ku lumanaya maqaaxiyaha iyo shaashadaha tifiyada badana waxaase ka sii daran in dad badan ay ku kaliftay dayacaadda waqtiga iyagoon garanayn habkay u maamuli lahaayeen waqtigooda ay u maamuli lahaayeen inay meel kale la aadaan oo yidhaahdaan kaale waqtiga halkaa kusoo luminay
waxaa haddaba su'aala maadaamaan soo fahanay oon hordhaca ku soo fahanay qiimo waqtigu leeyahay ma jeceshahay walaalkayga muslimka iyo walaashayda muslimadda ahi ee Soomaaliyeed ee afkeeda fahmaysaa ee luqadan ku hadlaya fahmaysay inaad waqtigaada maareysato oo aad ka faa'iidaysato ma jeceshahay si aad midhaha aad maanta beerato berrita aad u gurato bal su'aashaasi jawaab haddaan u raadino qodobadan baan ku soo ururinaa tilmaamaha raac horta waxaad ogaataa qof walba ilaahay inuu siiyey 24 saacadood ama 1440 daqiiqadood amba 8600 ilbiriqsi si aad u maareyso haddaba waa halkii maalin intaas 24 saacadood maxay u dhigmaan marka daqiiqada loo gudbiyo 1440 marka ilbiriqsi loo bedelo maxay noqonayaan 8600 عفوا 8600 ilbiriqsi ay noqonayaan haddaba si aad u maareyso waqtigaada qaaliga ah oo una kaaga dayacin waa hanti qaali ah meel aan loogu talagelin si kaaga bixin tilmaamaha raac horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhnow ma rabtaa arrin ballan iyo damaanad ma rabtaa mar wallo ilaahay ku xidhnaato subxaanahu wa tacaala oo dariiqa ilaahay ku jeexay aad marto waa mar walba waqtigaada ku habaysnaanayo ilaahay baa muwaafaqad ku siinaya ilaahay baa ku waafajinaya wadada tiisa toosan sidaadka iyo sida sawaabka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku waafajinaya waa inagu maanta awood uma lihin in anagu wax kastoo fiican qabsanno oo sida fiican wax u qabanno ilaahay baa la weydiistaa inuu ku waafajiyo waxaa ilaahay la weydiistaa اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا لا إله واحد موفق جعشة إسرائيل ذكرتها مركا قضب كوجه الريوحي إلهي كحنو إن إلهي كفرتي إنه وقت كفى يستيس كداعي نرشيس قد مدو يبقى لك وسعته قضب كلا بعض هرت هدف يول يلو عد حضان هدف الحين حضرنا شيء مجرد استل أجل جد waxaad waqtiga u maareysaa abadii waaba ma jirto qof markuu hadaf leeyahay ee meel u socdo ee uu meel higsanayo ayuu waqtiga ku xisaabtami karaa si uu yoolka u gaaro qodobka saddexaad samayso waqti aad wax qorshayso si joogto ah aan talada wali baan ku siinaya waxa weeye usbuuci inaad mar wax qorshayso qorshayaasha maalinlaha iyo saacadaha lagu wareeraa inta badan amba khalkhal baa kugu iman kara waayo maalin kastaaba waa kastaaba waayele لكن أسبوعي وحقرشة قفل با بل الإنسان على نفسه بصيرة قفل الإنسان رشي سيقارنا وحكو حيرا يضرفها يشقوي كويال مركا وقت جاغا وحات قصة ليسا ولا كويال مالين فريسو أسبوع كاملة سبتيد أما جمعة فريسو جمعة هبينك جمعة أما مركا جمعة سيبا حيسو قال لك دمتها فريساتو بعد عصر تمال فريساتو وحال قرتها ولا كويال أسبوع عرض sabti laga bilaabo ilaa jimca laga gaarayo qorshee waxyaabaha kugu soo darsi karana ku talagal waqti aad meel qorshaysay wax laga yaabaa in hawl kale ka soo dhex gasho ku talagal naftirkeeda qodobka afraad mudnaanta si kolba arrimaha muhiimka ah tusaale ahaan laba arrimood baan qabtay doonaysa arrin waa muhiim oo waqtiba kuma sugayso ee degdeg in loo qabto baantay arrinna waa muhiime laakiin waqti dib loo dhigo waxba dhigo kuma jirto marka tan muhiimka in ku sugayna soo horreysay markasta arrimaha kala arrimahaaga say u kala muhiimsan yihiin ay u kala dhaqsabeeyeen u kala horreysay qodobka shanaad in odhan karo waa qodobka ugu muhiimsan jooj oo iska ilaali oo iska jir dib u dhigista procrastination is the thief of time calorie oo macnaheedu yahay dib u dhigistu waa tuuga waqtiga ee iska xidha waa taswiif waa saariqul waqti baa dhada dib u dhigiddu waqtiga cuntaa berri kulle ma dhammaanayso berri baan qaban berrina berri baa kusii xigta berrina berri kalaa kusii xigta berri baan qaban marka dambe waxaad arki doontaa adigoo hawlo badan
isku gaadheen shaydaan wuxuu odhan doonaa nin qoyay bay iskaba dhowree ma qaban kartid iska dah marka dibdhigista iska ilaali qodobka kale ugu dambeeya kusoo gabin waxa weeye iska jir tuugta waqtiga ee kale waxaa ka mid ah saaxiibada xunxun internetka isticmaalka baraha bulshada ee aadka u faraha badan ee fadhi ku tirrada malaayacniga nidaam la'aanta doqonnimada dameer dhaan raacanimada qorshe la'aanta waxyaabahaasoo dhan iska jir mawduucu intaas isku egyahay intaan mawduuc kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu